بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 23 bisha December 2019 waxaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud oo aan babaxay wafdi ka kooban 5 qofood uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha Professor Shirwac uu ka mid yahay gudoomiyaha golaha siyaasadda madaxweyne Tiicay iyo laba oday dhaqameed iyo xoghayntii golaha taasoo ay u baxeen in ay ka qayb galaan maamul sameynta galmudug taasoo goluhu aaminsan yahay in la dhiso maamul loo wada dhan yahay oo raali la isaga yahay si ay u soo uga qayb galaan kana qaataan qaybta ay ku leeyihiin golaha maamul dhisidaas waxaan rajaynaynaa insha Allah in lagu guuleysto meeshaasna ay ka soo baxdo maamul loo wada dhan yahay oo raali la isaga yahay doorka uga furan waa la tashiyo iyo tala bixin habkii loo dhisi lahaa maamulka oo raali la isaga wada yahay iyo wixii caqabadaha oo meesha jira in ay wax ka xaliyaan madaahin sababtoo ah waxaa jiray mushkilada kale oo gobolka ka taagnaa maamulka iyo annaga oo ku mashquulsaneen cali masaarkii iyo xafiis sameyntii golaha maadaama golaha uu golo cusub uu yahay haddii bilaabatay maamul sameynta xoogeeda intii ka horeysay caqabada waaweyn ay jiray oo aan kor kala socon mar walban uu noo jiray qof wakiila oo meesha jooga magaalada Dhuusamareeb oo la yiraahdo Axmed Salaad Kulmiye oo ka tirsan golaha shaqooyin badan hor yaala maadaama loo onkay in beeshan ku midowday golahan ay horseed u noqoto nabadda Soomaaliya in ay la fadhiistaan isna gacan qaadaan cid alla cidii gacanteeda gaartay iyo cid alla cidii annaga aan wax ka tabanayna